wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ka daahfurtay qaybinta buugaagta manhajka cusub ee dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka kuwa oo tiradoodu dhan tahay 150,000 oo buugaag iyagoona si bilaash ah u qaybinayay dhammaan ardayda iskuulada galmudug. munaasabada qaybinta buugaagta ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dugsiga Almaamuum ee magaalada Dhuusamareeb halka ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka waxbarashada galmudug Axmed Deeq Cabdi Falko iyo mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. ugu horeyn munaasabada qaybinta buugaagta manhajka waxaa ka hadlay Maxamuud Axmed Cali madaxa waxbarashada Dhuusamareeb iyo mid kamid ah maamulayaasha dugsiyada. qaybintii buugaagtii manhajkii afka Soomaaliga ku baxayay ardayda dugsiga hoose ay qaadanayeen hoose dhexe andhaha aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaan uga mahad celinaynaa dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo hadii ay ku roon yahay qubaradii macnaha diyaariyay in afkii Soomaaliga wax lagu barto aroortii galmudug ardadii galmudug mustaqbalkii galmudug ay maanta manhajkii loogu tala galay oo Soomaali ku qoran oo waliba si bilaash ah ay ku qaadan doonaan waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. wasiirka waxbarashada galmudug Axmed Deeq Cabdi Falko ayaa ka warbixiyay ahmiyadda manhajku uu leeyahay ardayda galmudug. hawshan maanta waxay daba socotaa waa wajiga labaad ama daahfurkii labaad ee manhajka qaranka dugsiga hoose iyo dhexe wuxuuna daba socdaa bishaan bilowgii markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka daahfuray magaalada Muqdisho ku baaqay 1 milyan oo buug in si free ah ardayda Soomaaliyeed lagu gaarsiin doono halkaas milyan waxaa galmudug uga soo aaday 150,000 oo buug baan hadii la yiraahdo imanka maanta ku daahfuraynaa iskuulkan Almaamuun ee caasimada ku yaala Dhuusamareeb oo wasaaradda waxbarashada gacanta ku hayso si bilaash ah ardayda reer galmudug wax ugu bartaan marka waxa weeyaan waa fursad runtii aad iyo aad muhiim noogu ah daahfurkan ka bacdi waxaan bilaabi doonaa in yani arday walba oo reer galmudug ah uu helo buug oo helo mana aha buugaas buug uu leeyahay ma aha buug uu iskuulku uu leeyahay waa buug shuruuc gooniye leh oo leeyahay hanti ay leedahay qaranku uu leeyahay ama wasaaradda waxbarashada ay leedahay. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay Cabdinuur Axmed Jaamac oo ah isku xiraha wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada maamul goboleedyada. waxay noo tahay taariikh lama ilaawana inaan manhajkii qaranka oo goobjoog u noqono lagu daahfurahayo caasimadda maamul goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb ayadoo oo daba socotay daahfurkii qaran ee madaxweynaha qaranka uu daahfuray runtii waxaa la oran karaa wasaaradda waxbarashada shaqada ugu badan laga raba inay u qabato ummadda waxa way inay soo saarto ummad isku soo fakaraysa